imika maalmahan waxaa lagu soo oogayey nin la yidhaahdo xildhibaan maxamed abiib ayaa lalaa ha laga qaado xilka iyadoo ay ku habboon tahay waaba ku habboonayd in wakhti kale dib loogu dhigo isaga iyo dad badan oo kale oo dheeraad ku ah golahaba in arrinkaas oo kale lagu dhammeeyo odaytinimo lagu dhammeeyo lana eego wacyiga iyo wakhtiga aynu taagannahay oo laga daayo halka lagu wado bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wa bacd waxaan doonayaa maanta horta insha allahu inaynu iftiiminno xaaladda ku gadaaman somalilan oo runtii ah beryahan xaalad aan deganayn dhinac walba lagaga shiday colaado waxyaabaha ugu wacan inaan wax ka iftiimiyo insha allah dadkeennuna runtii aanay ku baraarugsanayn siday wada ognahay ama in yariba ay og tahay ilaahay somalilan wuxuu dhigay meel istaraatiiji ah oo aan laga maarmi karin oo mandaqadda iyo caalamkaba istaraatiiji u ah muddadii dambe ee dhowr iyo soddonka sannadood ahayd somalilan waxay noqotay meesha keliya ee ka ifaysa mandaqadda xag nabadgeliyo xagga amni xagga doorashooyinka si ay u qabsato iyo madaxdu si ay ula kala wareegto xagga dhaqaale ahaan xagga sumcadeed yacnii way ifaysay runtii taasi waxay kalliftay in dadyowga jaarka ahi ay u arkaan haddii siday horeba ugu arkayeen in somalilan hadday dhaqaaqdo ay ayagu dambaska noqonayaan oo dambaska gelayaan waana waxyaabaha ugu wacan maanta in dhinac walba xag siyaasadeed iyo xag shacab iyo dhinac walba lagaga soo duulo somalilan somalilanna ay noqoto mid ayadunu isku jeesata oo danihii laga lahaa laga dhex fushado ay noqoto markaa dadkeedii ay noqdaan wakhtiyada ka mida ayaa madaxweynihii hore soomaaliya siyaad barre waxaa la weydiiyey bal ka warran haddii somalilan ay go'do bal ka warran baa lagu yidhi wuxuu yidhi soomaaliya waa kontiinarkuna albaab keliyuu leeyahay albaabkaa keliya haddii waa albaabkii keliya soomaaliya laga soo gelayey hadduu go'o macnaheedu waxa weeyaan somalilan hadday go'o macnaheedu waxa weeyaan soomaaliya jiri mayso waa xidhmaysa weeyaan meel kaloo laga soo gala ma laha macnaa wuxuu tusinayaa inay tahay istiraatiijiyadda soomaaliya inay tahay somalilan iyo caalamka iyo geeska iyo mandaqaddaba marka kama maaranna buu yidhi somalilan kama maarmi karto soomaaliya somalilan kama maarmi karto gobollada waqooyi kama maarmi karaan mar la weydiiyey xasan guuleed abtidoon ninkii la odhan jiray waa siyaasaddan iminka uu ku shaqaynayeyna cumar geelle iyo jabuuti ay ku shaqayso bal ka warran baa lagu yidhi somalilantani haddii ay tallaabsato oo maarata halkan ay doonayso ay gaadho bal ka warran baa lagu yidhi isaga laftiisa wuxuu yidhi somalilan iyo jabuuti waxay ka dhigan yihiin laba dabakaayo ama laba dukaan oo iska barbar furan haddii labadaa dukaan waxaa kacaya kii dakhliga yar leh wuu kacayaa waxa isagoo uga jeeda macnaa jabuuti inuu dakhligeedu yar yahay dadkeeduna yar yihiin oo aanay iska xejinaynin inay somalilan hoo tallaabsato oo dekedaheeda iyo qarannimadeeda iyo waxeedu soo noqdaanoo shaqeeyaan isagoo u sheegaya dadkiisa ayaa wuxuu yidhi laba dukaan oo layska barbar furo hadba kii dakhliga yar ayaa kaca waa waxyaabaha ku gadahman somalilan ee u diidan inay hore u tallaabsato taas oo dadkeennu aynan ku baraarugsanayn oo runtii maanta
aad marxaladdan ay marayaan ay tahay marxalad muddo dheer laga soo shaqaynayey si aanay u tallaabsanin hamigeed iyo riyadeed iyo horumarkana aanay u gaadhin riyadeedana aanay u rumaynin. waxaan ugu baaqi lahaa dadweynaha reer Somaliland siyaasiyiintooda iyo shacabkoodaba inay midoobaan, iska dhigaan wixii dhex yaalla, iska ilaabaan siyaasiyiintan qabyaaladda ku kala qoqobaya, ay hal meel iska dhigaan, siyaasiyiintu ay u midoobaan. kursiga ilaahay baa bixiya, kii loo qorayna wuu tegayaa, balse in horta la nabadeeyo dadkan, marxaladdan maanta joogtana laga tashado, looga fadhiisto bal sidii looga bixi lahaa, waxna la iska weydiiyo, la isagana yimaado ayaan ku talin lahaa. ninkii inacigaa la odhan jiray ayaa wakhtiyada ka mid ah waxaa lagu yidhi bal dalkan aad u tahay madaxweynaha bal ka warran. wuxuu yidhi dalkaygan waxaan ogahay meesha aan ku aallo iyo waxa ku duugan oo ah macdan. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna siiyey waxaan dadkeennu ku baraarugsanayn oo ah hawadii, kalaamadkii, macdantii, shidaalkii, yacni nooc wax aan ku jirin, nimcoolaydii, xoolihii, waxyaabo dee aanu caalamka oo dhan ilaahay isugu dhammaystirin badidooda ayaa ilaahay inoo dhammaystiray, taasaan oo ana ogeyn dadkeennu. marka wuxuu yidhi aniga cid aan ka maarmo mooyaane cid iga maarmi kartaa ma jirto buu yidhi, waayo ilaahay wuxuu dhigay buqcad, ilaahay wax walba uu dhigay. marka inaan cid anugu ka maarmo mooyaane cid iga maarmaysaana ma jirto. in la ictiraafo Somalilandna waa lama huraan buu yidhi, waayo waa dal meel istaraatiijiya ku yaalla, ilaahayna qaniimo dhigay, loona baahan yahay weeyaan buu yidhi. intaa haddaan kaga gudbo baraarujinta aan doonayo inaan ku baraarujinno nimcada ilaahay dalkeenna dhigay iyo dadkeenna ee aanay dadkeennu ku baraarugsanayn, waxaan tala ka bixin lahaa marxaladdan taagan xagga siyaasadda. iminka maalmahan waxaa lagu soo oogayey nin la yidhaahdo xildhibaan maxamed abiib ayaa lalahaa ha laga qaado xilka. waxaan odhan lahaa, ku talin lahaa in arrinkaas oo kale lagu dhammeeyo, odaytinimo lagu dhammeeyo, lana eego wacyiga iyo wakhtiga aynu taagannahay oo laga daayo halka lagu wado, waayo waxay noqonaysaa meel aan rabay roobma igu eryey. ayadoo maanta cadowgeennu fara badan yahay, ayagoo maanta godololooyinkeennu fara badan yihiin, waxa weeyaan jaanis waxay siinaysaa dadkii meelaha qoorta kula soo jiray ayay jaanis siinaysaa. marka waxaan odhan lahaa gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaaye, in arrintaas iyadoo ay ku habboon tahay waaba ku habboonayd in wakhti kale dib loogu dhigo, isaga iyo dad badan oo kale oo dheeraad ku ah golahaba, ama golaha siduu u badan yahayba ay dheeraad ku yihiin Somaliland maanta, oo maanta ay xilkoodii gabeen, oo aynu golayaashii aynu ku khasaarnay ay yihiin. haddana waxaan odhan lahaa maanta kuwa ma habboona in xilka laga qaadee, salaadba wakhtigeedaa la tukadaaye, dub ha loo dhigo oo hoos ha lagu dhammeeyo, arrintaasi arrin laga odayeeyo, odayaal galaan ha noqoto baan odhan lahaa. wakhtigeedana ha la gaadho oo wakhti kale dub ha loo dhigo baan odhan lahaayo, wakhti kale ha laga dhigo xilka qaadistaas ayaan anigu odhan lahaa. laakiin maanta ma taagna baan odhan lahaa oo mana eka. taana intaasa ku talin lahaa.